haddii aad rabto ilmahaaga inay noqdaan ilmo isku filan ilmo wax qabsado waa inaad ka caawisid markay yaryar yihiin waxyaabaha ay qabsan karaan inaad u ogolaatid adigana aad u noqotid hogaamiyihii u baahnaayeen soo mar walba ilmahaaga wax qabato iyagay maaragtay u dhigaysaa hoos wax qabadkooda iyo confidence-kooda iyo waxyaabaha ma fahantay ka fikir lahayn inay samaystaan ma samaysanayaan so ilmaha maskaxdooda waxyaabaha kobciya waxaa kamid ah inaad ula dhaqanto inay yihiin qof maaragtay adiga kula eg camal inaad kasoo qaado waxaan ka wadaa marka qof ruux waaye bini aadan waaye waa mataqaanaa ilmo wuu yahay qofka haddana at the same time waxaa loo baahan yahay inaad u ogolaato shaqsinimadiisa iyo waxyaabaha uu qabsan karo inaad u ogolaato inuu qabsado waa ujeedaa hadda meeshaan oo kale waxyaabaha fudud oon rabo ilmihiin inaad insha allah ka qayb gelisaan waxaa waaye cuntooyinka marka la diyaarinayo cuntada markaad diyaarinayso qofba mar u ogolaawo inuu fruutada jarjaro yaanyada qudaarta waxa kasto saladka okay kuwa kale ilmaha kalena ha ag fariistaana ma fahantay ha fiiriyaano because waxay baranayaan in la isu sugo in la isku dulqaato in wax la isku sheego in la isla shaqaysto in wax maaragtay la isku darsado wax la isweydaarsado like shaqo dhana meeshan ka socoto sidoo kale ilmaha diyaar rabta inay horta noqdaan ilmo jirkooda wax tar maaragtay badan yeesho si immune systemkooda kor uga kaco waa inaa isticmaashin qudaar iyo fruuto okay cuntada ilmahaaga siinaysid waxay qayb weyn ka leedahay qaabka ay u korayaan maskaxiyan iyo jir ahaanba okay so cunto fiican maaragtay fitamiino badan ay ka heli karaan maalintii inay u kala badbadasho insha allah ayagoo cuntadooda caaniga cunaayo baastadooda bariiskooda because way u baahan yihiin hilibkooda and then at the same time wax badan oo fiican inay cunaan waaye so waa arkaysaa haddii wax ka daataan dhib ma lahan haddii maaragtay wax qaldaan dhib ma lahan adiga waxaa loo baahan yahay inaad kalam ahaato inaad kor taagnaato inaad dulqaad badan u yeelato inaadan ku xanaaqin insha allah youtube-kan wax badan ayaa la baahay